يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله. kulanti wacan wanaagsan daawadayaal halkan waa channelka kobcinta garaadka carruurta haddii ay tahay markuu hore soo baqo channelkeena hayluhina subscribe-da kadibna aad furta calaamada gambaleelka si uu kuu soo gaaraan qisooyinka jimcada siina gaarisa asxaabtaada oo jecel qisooyinka adoo ku sheer gareynaya baraha bulshada maanta waxaan ideenaa qisada asxaabul uqduud qaybteedii labaad la socod wanaagsan. maaldhowda qisadeena u maleysay wasiirkii oo u tagay boqorkii asigoo indhihiis ku socda boqorkii ayaa dhahay aniga waa indhaha kuu soo celiyey. wasiirkii ayaa dhahay rabbigay soo celi rabbigayba. boqorka ayaa dhahay rabbi iga khayr badan maa samaysatay. wasiirka ayaa dhahay haa. boqorkii ayaa dhahay hala ciqaabo haanoo sheegay qofkii baray diintaani. wasiirkii waa la ciqaabay weyne waxaa laga ciqaabay ciqaab aad u xun. way ciqaabeen ilaa uu ka sheego qofkii baray diinta waa uu sheegi waayey. haddana waa ciqaabeen ilaa uu ka sheego wuxuu sheegay wiilkii yaraa. wiilkii yaraa ayay soo qabteen asigana waa ciqaabeen weliba si xun ay ciqaabeen. waa uu diiday in uu sheego. markii dambe ayuu sheegay boqorkii wuxuuna ogaaday shiiqii inuu waxaan ka dambeeyo. shiiqii ayaa la hor keenay boqorkii ayaa ku dhahay shiiq war diintaada ka laabo. shiiqii ayaa dhahay aniga diinteeda ma ka laabanayo wax walba aa samaysid diinteeda ma ka laabanayo. boqorkii ayaa ku xanaaqay wuxuuna ku dhahay ciidamadiisa ninkan dila. laakiin si walba ayuu ku sameeyey shiiqii waa uu diino diintiis ka laabto. boqorkii waa uu xanaaqay weliba si xun ayuu xanaaqay. haddana wuxuu dhahay labadan wasiirka iyo shiiqaan hala wado hana la dilo wiilkana halii keeno anaga ayaa ka saayay shaqadiisa. wasiirka ayaa la waday waxaa iska hor imaaday wiilka iyo wasiirkii. shiiqii ayaa dhahay iska adkayso imtixaanka ayaa noo bilaabnay waana la sii waday. wiilka ayaa si toos boqorkii loo geeyey asigoo cabsi dhan ka muuqanin. boqorkii ayaa ku dhahay wiilkii diinteedu rumeey anigay caabud ee waxaa dhan iska dhaaf. laakiin wiilkii waa uu ka diiday wuxuuna asiga ku dhahay aniga diinteedu rumeeya iyo wiilka dhahay. boqorkii aad buu u xanaaqay sidii hore ayuu kaas kasii daray wuxuuna ku amray ciidamadiisa in ay wiilkani buurta geeyaan ay ka soo tuuraan. ciidamadii waxay dhaqaaqeen dhankii buurka. wiilkii asigoo waxba wuxuu ilaaha ka baryay in si walba oo ilaahu kaafiisa. isla markiiba waxaa gelgelitay buurtii waxaana daatay ciidamadii loo diray wiilkii. isla markii kulligood dhammaantood waa ay dhinteen ciidamadii oo dhan. wiilkii bis ayaa soo haray. wiilkii ilaahay ayuu ku mahdiyey wuxuuna dhahay waa in aan u tagaa boqorka. maalintii xigta wuxuu u tagay boqorkii. la socod wanaagsan qaybtii xigta ee qisadii asxaabul uqduud. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.